caan ku ah duminta dhaqanka afka iyo maamulka wadamada uu gumeystay ayaa Djibouti mariyay wadadii uu caanka ku ahaa Soomaali galbeed oo mar kale Ingiriis yimid ayaa dhaxashay dhaxalkii ugu xumaa ee gumeysta dhaxal siiyo iyadoo ogaadeen in laga iibiyay cadawgeedii soo jireenka ahaa ee Itoobiya kaasi oo ka dhigay gobolkii mid gumeysi oo aan waxba dhaamin Falastiin iyo Kashmir dhulka waqooyi bari ee ku caanbaxay NFD ayaa asna ka baaqan beecii Ingiriisku ku gowracay Soomaali galbeed Ingiriis ayaa NFD raaciyay Kenya oo aysan jirin meel ay isugu yimaadaan dhulka Soomaali weyn oo Rabbi ku manaystay khayraadka badda iyo bariba midowga dhulka Soomaalina ka dhigi lahaa Soomaalida kuwa hantiya mid kamida dhulka ugu waaweyn ee qaaradda iyo caalamkaba sakala qoqobnaanta uu sababay gumeystuhu ayaa wada kala burburiye kala baxsada ku sabab